maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane hodan maxamuud diiriye oo maxkamadda horteeda ay ka qiratay jirdilka marxuumad saabiriin saylaan cabdille. maxkamaddu markii ay aragtay doodafeedka xafiiska xeer ilaalinta, maxkamaddu markii ay aragtay feedka qareennada difaaca eedaysanayaasha, maxkamaddu markii ay aragtay gabagabada xafiiska xeer ilaalinta iyo gabagabada qareennada difaaca eedaysanayaasha, markii ay aragtay maxkamaddu codsiga eedaysanayaasha, codsiga dhibanayaasha, maxkamaddu markii ay aragtay shareecada islaamka aayadda 178 179 ee suuratu albaqra, aayadda 32 45 ee suuratu almaa-ida, aayadda 33 ee suuratu alisra. maxkamaddu markii ay aragtay qodobka 434 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembi dhacay eedaysanayaashuna ay yihiin kuwii galay. go-aanka maxkamadda darajada koowaad ee degmada Gaalkacyo waxay ku xukuntay dembiile hodan maxamuud diiriye inaxaawo xasan 34 sano jir ah dil toogasho ah oo ah alaamuso. maxkamaddu waxay ku xukuntay dembiile hodan maxamuud diiriye inaxaawo xasan 34 sano jir dil toogasho oo ah qisaastii marxuumad saabiriin saylaan cabdille. maxkamaddu waxa ay ku weyday eedeysanaha koowaad cabdicasiis nuur xaashi calas eedeysanaha labaad cabdicasiis nuur xaashi calas qodobada xafiiska xeer ilaalintu ay ku soo eedeeyeen ee ah 432 448 waxayna maxkamaddu ku heshay qodobka 430 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna ku xukuntay dembiile cabdicasiis nuur xaashi calas in arda maxamed 1 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya $500. ciddii aan ku qancin fadhiga go-aanka maxkamadda racfaan ayaa u furan. waana mahadsantihiin.